Anagtay gabriel maayo aniga asaga socdaa badda ya السلام عليكم جايز ولكن ودنا بحر ودن له soo dhawaada fadlan hadii aad ku cusubtaa channelkayga subscribe saar hadii aad horay u saartani mahadsan magacayga wadin bahar halka diga daawanaysidna waa CM Vlogs and Films haddaba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo video ay sameeyeen boqorka gambiska iyo gabar maayo waa laba lamaano aad u faraxsan noloshana wax ka yaqaan haddaba aan daawano videogaas wax ka qaldanne waan ambareynaya wixii ku saxan yihiin waan ku taageerayaa waa laba lamaano isjecel horumarkoodana waan ku faraxsanahay maadaama ay yihiin Soomaali inta aan video guda galin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta ku soo biirtay inta ku soo biirayso inta ku xirneed channelkayga inta commentiyada soo qoreen inta like siiyeen inta daawatay videoyasheeda inta share gareysay waxaan idin leeyahay all waa mahadsantiin waxaan halkan ka xusayaa dadka commentiyada fiican soo qoray sida DJ Nimco aad ayaad u mahadsan tahay Ibrahim aad ayaad u mahadsan tahay Joker aad ayaad u mahadsan tahay Asha aad ayaad u mahadsan tahay yaa isaari hoodo aad ayaad u mahadsan tahay Nasra Jamac sidoo kale aad ayaad u mahadsan tahay dhammaan inta ka soo tagay aad ay u mahadsan yihiin waxaan rajeynayaa next video inaan soo qaato waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan ku noolaada farxad haddana inoo bilaabo videogeena idinko mahadsan maxaa sameynana adaa ku warslaaya adina warsloosa ani uma kudhaya waay saddex mar buugeen raadiye raadino gabriel maayo buug way ku dhamileeno hadduu kaa dhumi daay anaa telefoon haysto sheega waxaa sameynaysid maanta alla la yaabay maanta wuxuu sameynayaa nabad anaga waxaa weydiinay cadnaan postkiisa boqor gambiska waxaa weydiinay dadaasha oo subscriberska dhahane su'aal ama talo waxna soo weydiiya waxay soo saareen badan wax maanta waxaan waxyar hadaa magacayga iloowe hopefully maalin kale ka hadli doonaa inshallah video kale midda koowaad waxaa waaye laba talo oo kan waxaa qoray Cabdullaahi Salaad wuxuu dhahay laba talo bis baa idin siinaa anaga talana siinooya anaga talada mina siino dadka iskaraaf laba talo bis baa idin siinaa mid adiga ah iyo mid xaaskaaga waxay sameynayaan waa wax faniya waa wax lagu qoslo waa wax lagu macnaheedu isku madadaaliyo ma sha Allah unuku leewaay unuku leewanino ha unuku soo leeyahay Soomaali leenahay okay waxay tiri YouTube ayaan post dhignay ayay tiri kadibna waxaan dadka ku dhahnay talo ayaa idin siinayna ayaan ku dhahnay mid baa wuxuu soo qoray laba talo ayaa idin siinaya waxay tiri markay anaka talo siinayno anaka abtana nala siinooya ayay tiri macnaheedu waxay la yaabanta talada ayada la siinayo ama ay kala siina ay la yaaban tahay haddaba aan ku sii socono videoga talada la siiyo aan wada aragno idinku maas midda koowaad waxaa waaye ilaahay raali boo idinka noqon doonaa insha Allah koowaad adiga shabada iska tirtir waxaan salaad aad tukani waxba kama jiro bro salaadey la dukanaa wax ka jiran iyo xasati waxba ka jiraan bro email ma la soo diraa salaadey taal aqbal miskale soo diraa email ma la diraa ma ogi waan ku rusnaya intuu ku imaado ma ogi wallahi ani ma ogi yaata adiga salaado Abdurrahman salaad uu baqana salaad wax ma ku wada salaato ما عبد الله صلاة هو أخانا داش لقى أقبله داش لقى أقبله صلاة كلا قصة هذا العقول waxaan la yaabanahay Soomaalida qaar ayaan la yaabanahay aniga war maxaa idin raacay dadka salaadooda war ma adiga og salaadiis in la aqbalayo waxaan la hadlayaa qofka su'aasha ama talada soo sii dadkan
qofka salaadiisa ilaah baa ku leh ka soo qaata hadda madoobeysada oo kale cijiyaha haddii la marsado salaada ansax ma ahan sida la sheegay sida diinta ay sheegtay okay haddii anigoon aqoon u lahayn aqoon uma lihi waxaan sameeyey cijiyaha ayaa waxaan marsaday madoobeys ama madax ayaa marsaday markaa madaxa marsaday salaadeeda in la aqbalo in kale warba kama hay waan imaada waan tukanayay adiga ayaa aqoon u leh adiga maanaysa maxay leedahay salaada lama aqbalaya waa may waxa ay leedahay hadda kadib ha marsanin waayo qofkii madoobeyse marsado salaada lagama aqbalayo qofkii madoobeyse marsado hadda waad marsatay aqoon umaada lahayn kasina umaada marsan ma fiicno hadda kadib ha marsanin okay tattoo ku soo haray tattoo horto waa sida madoweysada oo kale jirkaagana in la marsado ma fiicno markii diiniyan qofka muslim markuu yahay oo aqoon u leeyahay waxyaabaha qaar oo gaalnimo ama dhibaato ama dembi ah wuu iska ilaalinaya balse qofka hadduusan aqoon u lahayn taas xukunkeeda waxaa iska leh culimmada taasi adi laguma dirsan waxaan ku dhihi lahaa qof tattoo marsan salaadada lama aqbalayo soonkaaga lama aqbalayo waxaasi waa mamnuuc waa qalad diintu alle waa nasteexo waa naxariis ma ahan culeys qofka diintu waa loo fududeeyaa ee laguma cusleeyo haddaba aan u gudgalna marka inta yar ama kalaamka yar noo dhiban ama talada kale aan dhegeysano midka labaad waxaa waaye talo kale waaye miya ad isku jooga intaan galaa labaad waxaa waaye xaaskaaga xaaska gabar maayo xaaskaaga madaxa hadda woolato mar walbo adaa lagu hadwayaa adaa lagu dhahay xaaskayga balaha mar walbo daboolo no madaxa ha daboolato mar walbo same thing haye aday ku dhahooyin xaaskaaga ha daboolato haye mar walbo maxaa sameynaya maxaa sheegay hadda soo sheeg okay aniga waxaan soo sheegaya waxa waaye kow aniga horta qofka oo dhahay maan xaaskayga xijaab soo gasha laazimi waaye ma dhahay maxaa waaye mahno laakiin adigu waxaad tahay ninka oo naagta qabo inaa ku dhahdid waaye inaa ku dhahdid ada waxaad tahay qof dabaal aad tahay wax maaqaantid madaxa daboolo dabaal iskoonyo madhahay anaagtay gabarey maayo baday ka socotaa free woman kan samee maya maxaa jira maanta atay ku dhahan saa samey maxaa dhahe wallahi gabarey maayo wallahi arkasi qof gabar maayo waxaan ku dhihi karo wax samee صح ani xora ahe جيس ما رجينا نقطين may فريتيني خبطة talada kale waa maqalnay talada kale ma aha wax weyn wuxuu yiri xaaskaaga timaha hadadato taas waa wax iska caadi wax xun maaha wax fiican weey balse gabadhu waxay ka dhawaajisay xor ayaan ahay adiga waxa tahay gabar walaasheeya gabar Soomaaliyeed waxa tahay qof macnaheedu Soomaalinimada jecel waxa tahay qof jecel dhaqanka Soomaaliya ina baratid haddaba adiga ayaan kula hadlayaa walaashe ama dumaash ama gawar maayo adiga ayaan kula hadlayaa xijaab xiro inuu ku dhaho ceeb maaha maxaa tiri xoraan ahay xor qof muslim xor ma noqdo qofka muslimka wuxuu doono ma samayn karo qofka muslimka isma qaabi karo ha qofka muslimka ah xor ma aha adiga waa inaad ka dambaysaa ama adeecdaa ama u ku amraa xajigaaga xajiga waa inu ku amraa sababtoo ah xajigaaga waa mas-uul ayuu kaa yahay wuxuu ku guursaday inuu adiga mas-uuliyadaada qaado wax walbo adiga kugu sabsan asaga ayaa lagala xisaabtamaya haddii xanuunsatid asaa ku daaweynayo haddii wax kusoo gaaraan asiga ayaa laga rabaa haddii u baahatid asaga ayaa dembiga lagu qoraya hal habeen haddaad gaajo ku jifatid asaga ayaa dembiga lagu qoraya wax walbo maad adiga kugu sabsan reerkaaga mas-uuliyadda saarneed oo dhan asaga ayaa dusha laga saaray
ina dhahdi ma markii xoraan ahay asigana inuu dhah maaha aniga ku amri kari labada qof hadaysan is amrin ee iska dambeeynin wax ma hagaagayaan jacaylku kuma jiro in la isfahmo ama la is amro jacaylku waa gooni amarkuna waa gooni wax isku sheeguna waa gooni wax markii lagu sheegayo ma aha amar hadduu ku dhaho xijaabo hadduu ku dhaho is astur asaga la isku asturtay ani kuma arkay dad badan oo indhaha shaxaarika ee kuma arkayaan laakiinse waxa idin dhilaha jacaylku ku dara is adeec iyo amar in isfahantaan way fiican tahay laakiin waxaa ka muhiimsan in aad is amartaan waxaa idin leeyahay halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa videogayga haddii aad video ka heshay like haddii aad ka helin dislike ولكن ودين بحر له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته